Xilligan isku soo beega Nicimo Joker iyo Ilka Case inay noqdaan lamaanayaal hadda lagu dhawaaqayo kala tagooda. Ma dhaba inay dalbata Nicimo Joker in la furo. Maxayse tahay Ilka Case bar live TikTok ay ku jireen inuu xaaskiisa si bareer u caayo xitaa uu ka diido inay ku hadlaan private iyo sidoo kale xilligan yaa soo kala dhaxgala dagaalkooda. Kala tagooda maxaa ka jiro maxaad si kala socotaa xogtaan daawada marka hore waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like noo saarto qaybta hoosena aad subscribe noo dhahdo si aad kaga mid noqoto saaxiibada halkan ku xiran ee si maalinlaha noola jaan qaado. Saxnaan iyo qalad waad noo soo gudbin kartaa qaybta hoose ee qoraalada. Joker xilli ay ku jirtay barta TikTok live-na ee saarneed ayaa gabdho badan oo aad ugu caynayaan in ay jirkeeda ka ganacsato ama ay iib geysato ayay waxay dhaheen maadaama ay wada saarnaayeen group isla markaana erayo iyo sidoo kale cod ay iska soo duubeen gabdhaha ayay aad ugu bahdileen taasoo ahayd in ay tahay jugta culus in ay tahay qof la qabo oo haddana ka ganacsata jirkeeda. Ayada ayaa tiri wax walba aan ahay muhiimadu waxay tahay in aad markasta iga daba qaylisaan taasi ayaa sare iisii qaadayso waxaan ahaa qof qanacsan oo gob ah. Laakiin dhanka kale Ilka Case oo ayaguna ay labadooda ay saarnaayeen TikTok ayaa waxaa mar qura gabadhu ay ka weysay Nicimo Joker fadlan aan ku hadalno guriga oo muuqaalkan aan ka dagano ee aan u hadalna si bareefada. Ilka Case ayaa yiri xitaa bareefadka iyo adigaba idinma aqaano iyo erayo aan inta ka dhihi karin oo aanan wanaagsaneyn. Markii xaaskiisa uu ka diiday inta Nicimo ayaduna durba afka ayay furatay oo way ay xanaaqday waxayna tiri hadiiba aad ka soo gudubto xushmeenta galgacelka iyo sidoo kale respectiga anigana wax aan doono ayaan sameynayaa ee wax aad doonto sameey. Lamaanayaashan oo dagaal badan kala dhaxeeyay cadow badan ay ku leeyihiin mareegta social media oo dhan ayaa hadda labadooda loo feesteeyay. Ilka Case qays ayaa xog muhiim aan helnay waxa tibaaxaysa in uu u sheegay in ayada dhamaanba oo furayo isla markaana oo iska fasaxayo. Nicimo Joker waxay tiri hadii uu furayo aniga kuma dhagani mana isku qasbayo weli waxaan ahay qof dunida u baahan tahay. Inkastoo lamaanayaashan ay hadda wada joogaan kala tagoodana uusan weli dhicin laakiin saantooda iyo dhaqankooda waxay noqonaysaa mid social media oo dhan la hadalhayo. Mar qura ayayse muuqaal iska soo duubeen live TikTok ay ku jireen caay ayay iskugu bedeleen. Ilka Case ayaase dadka badi waxay dhahayeen qofka qaldan oo qaladka badan leh waa Ilka Case inuu qaldan yahana waxa ku tusayso hadii lamaantaada ay qalad ka sameyso walaal gurigaada ku dhaxanaano guri ayaad leedihiin taga qolkiina fadhiga kadibna arinta halka ku xaliya. Nicimo Joker way ka saxneed inay tiraahdo arinteena bareefad ayaan ka dhiganeena laakiin Ilka Case ayaa diiday arinta. Haddaso xaaladooda lamaanayaashan hadii aan la soo kala dhaxgelin waxay u badan tahay in ay kala tagaan oo dagaalka kala dhaxeeya Daahir Calasow Farxiyo Kawayar iyo dad kale oo caan ah hadda waxaaba uga xanuun badan lamaanayaashii garabka isiinayay ee si wada jira iskaga celinaya cadawgooda markaan ayay ka dhax tafatay. Maxaa isku soo beegaya lamaanayaasha muddooyinkan dambe dagaalkooda laga dhax sameynayo social media. Case qays waxaad moodaa nin caradii ay ka badatay ee xakameyn waayay xitaa in uu saaran yahay muuqaal live oo balaayin qof ee daawanayso. Dad badan ayaase arintan aad ula yaabeen qoraallo iyo xogo aan helnay waxay ku dhow yihiin in ay kala tagaan lamaanayaashan maadaama ay xadka iyo sidoo kale arintooda hoos loo xalin laayahay. Inkastoo kuwa wanaaga jecel ay hadda ku hoolan yihiin jiritaanka lamaanayaasha iyo joogitaanka taasi ayaan jecelnahay in ay wada joogaan laba lamaano iyo laba wada jira oo noloshu ka dhaxayso.